قصير آد إلا ياب لبان إذن كشيكينيا وحقيقة ودعضي قبل بقى وحي برعوي حيد إن بدنا وان كشيكي ساوي وقع برقاتان ضدك ومسألة آد يعني إن لو قع برقات أمودن قبل ريب برعابا وحي سين جرتين نين مسكينة أي أرور والبقراع سين جرتين إلهي درتي لحوح يسبق وحي سجود درجتي كوب كيس شاها نينكي مالنتي دمبه ayuu gabadhii la hadlay wuxuu yiri heeda gabadh yahay waxaan kuugu abaal gudo garan maayo laakiin waxaan doonayaa inaan ku abaal gudo ninkaaga ku jeclaysiiyo oo aanu meel kaleba aanu hawaysanin waa si fiican bay ku tiri waa sax iga caawi deedna qardhaas qoran buu u keenay maalintii dambe wuxuu ku yiri ninkaaga barkimada u hoosgeli maxaan ku cid kale hawaysan maayo halkaasuna ha kuugu jirto way ka qaaday barkimadii bay hoos gelisay ninkii markuu soo hooyday ee barkimadii ku seexday ninkii waabu shaqo tagi waayay kaadi uu u kaco mooyaan xataa salaad waa u kici kari waayay uu kaca hadday wax yar uu cuno jiifku ku cunaa ama fadhigu ku yaraan hurdadiibu ku noqdaa haddana uu kaca markuu kaadi qabato hurdadiibu 3 maalmood iyo 3doodii habeen ayuu jiifba ka kici waayay oo sariirtii uu jiifaa warwardee shaqo tag waan daalanahay idaadaas u bahaya maba shaqo tagayaba dabadeedna isagoo masqusha galay ayay ka soo saartay meeshii way gubtay ninkii caadi buu u dhaqaaqay markuu iska tagay shaqadii buu tagay ninkii kalena uu yimaadaa mar walba ka waran ninkii si fiican bay tiraahdaa sidinku haystaa maalintii dambe waxay yidhi ku kale ka xoog badan baan kuu keenayaa ku kale kii ka xoog badan ayaan kuu keenayaa waayo iyo keen bay ku tidhi wax yaroo tuman ayuu u keenay wax yaroo tuman ayuu u keenay wuxuu ku yidhi shaaha ugu dar haya keen bay tidhi way ka qaaday waagi aroortii dambe markuu isagu imanayay ayay isagii shaaha ugu dartay isagii bay shaaha ugu dartay marka shaahii dhadhamiyay ayuu cabaaday nawa maxay waxaan ku leedisiisay nawa maxay waxaan ku leedisiisay maradii buu tir sidii buu ku waashay beenidii sheeg maayo isaga kii waxa soo dhigay nawa maxay waxaan ku leedahay waxa noo dhiibtay bay ku tiri ninkaasi waxaad nagu tiri ninkaaga sii ayaanu daadiga ku siinay beenidii sheeg maayo sidii buu horta ninkaasi uu ku waashay marka waxaan ka wadaa unasaxukum billaah nin ceel galay oo aan ka soo waramin nin ma haba leeyahay والرائد لا يكذب أهله الرائد لا يكذب أهله meelaha ku warwareegaysaan ama gabadh la jeclaysanayo ama nin la jeclaysiinay waxa soo dhanay hadhow dhibay keenaa ani inta soo jeer waxa soo martay gabadh loo qabsaday madiido oo madiidadii iscakistay madiidadu waxa weeye waxaan ay carabtu yiraahdaan tiwalada oo qofka ayaa waxa la rabaa inay wax jeclaato ama ninku inuu wax jeclaado ayaa la rabaa madiida la yiraahdo carabigana tiwala ayaa lagu yiraahdaa inantii markii madiidadii loo qabtay dhammaan wax allaaliya wixii rag ah oo dhan bay saniftay xataa aabaheed xataa walaalkeed wax walba way saniftay ragba hadduu noqdo qadmuun buu u soo uray halkii laga rabay inay ninka jeclaato bay jamiic rijaal oo dhan bay nacday mid kalena way soo martay oo isla madiidadaasa oo markii madiidadii loo qabtay nimaw nin ma tahay oo uu jeclaatay wax allaali wixii ninba sheegta way iska daba ordaysaa waxa anigu aan la kulmay ama ninkii arkay oo iga waramay ninba wuxuu soo samaystay madiido waa qiso aad u cajaa'ib oo qosol badan ulba loogu soo qabtay waadiya jeer miyiga markaad aragto ulba wax loogu soo aqriyaa wixii maxaan ku dhahay junuudi la soo raacinaya deedna ninkii oo u shii wata ayaa wuxuu soo maray meel ceelaho laga dhaansanayo ayuu soo maray ushiisina iska sitaa isagoo oo markaa ushiisii sita oo doonaya inuu ceelkii ka cabo ayaa dameer meesha taagnayd oo la dhaaminayay ayaa ku soo yara dhawaatay deedna ushiibu iskaga dhuftay
dameertii baa daba carartay isagii meeshuu maraba way daba qaylinaysaa meeshuu maraba way daba qaylinaysaa war dameertii maxaad ku samaysay war dameertii baa ka hadhi weyday si allaaliya si looga reebo dameertii waa la garan waayay aakhirkii dameertii waa la dilay aakhirkii dameertii waa la dilay xaqiiqatan marka horta caalamkan aynu ku noolahay waa caalam wada asraar ah oo aynaan furfuri karaynin oo ilaahayna leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila marka aqoonta maanta aynu u leenahay iyo mugga aynu u leenahay cilmigani waa aad buu u yaryahay ilaa iyo haddana dadkii kama waantoobayaan war ilaahay qur'aan buu ina siiyey وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين نبا نشيخ أيمي وحد الشيخو قرآنك أنا ويدبا يا مرك الله يقول أقريبا قرآنك ما بكو عافي ماضي وحد منافق باتاي ما حد كو عدينا يصدق قرآنك أكو شيء يقولي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ظالم باتا يبوري توبة كان مركز القرآن وحكو أنفعيا هذه قدام القرآن كي كل صونين أو ثقة كقبن وحبكو ترماية ظالم بعد نقول إنسا ظالم كنا ما ينتفع صدد القرآن كوحا أنفعيا مؤمنك سيدي هذا من وحو أنفعيا قفك دايق إنسان أنا عند ظن عبدي بي ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة إلهي بريا يدكو rumaysan inuu ilaahay idin aqbalayo uma baahanaysaan mushacwad iyo sixroole iyo wax jin la shaqaysta midnaba qofka bin muslimka uma baahanayo laanahu wuxuu haystaa kalaamullaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay kalaamkiisii buu haystaa marka waxaan idinku naseexaynayaa dadka meelaha fadhiya ee jimanka adeegsanaya ee shayaadiinta wax la qaybsanaya ee wax weydiinaya waxaan ku yidhi qolahan maalintii dhaweed yimid gabadha lahaa wax lacag baan siinay maxaa ku rumaysateen waxay noo sheegtay xaaladahaygii oo dhan bay nooga warrantay magacaygii bay sheegtay magacay aabbahay bay sheegtay kii awowgay bay sheegtay dhibaatooyinka aan qabo oo dhan bay ii sheegtay waatan habeenkii dhaweyd idinka warramayay waxaan wax saa u sii ridan maaha inuu maxaan ku dhaha shaydaanka la shaqaysanaya inuu kaaga warramo xaaladaada oo dhan wax muhiim ahoo qofka bini aadmiga awliyanimo tilmaamaya ama qofku inuu qaybka wax ku ogyahay tilmaamaysa ma aha labadan shaytaan ee qarinadun baa iswaraysto anigii kaaga warramay marka barakallahu fiikum waxaan idinka digayaa oo idinka nasteexaynayaa dhib badan baa ka timaada marka loo tago saaxirka iyo maxaan ku dhaha kuwa mushacwidiinta diin ahaanna waaba dee lagu baaba'ayo waataan ka soo warranay ruuxii sixiroola u taga ee rumaysta wuxuu ka warramayo faqad kafara bima unzila calaa muxamed xadiidkii saxiixa ah qofka sixiroola u taga wax diinu haystaa ma jirto diinta islaamka bannaankuu ka yahay in loo taga ma ahan